ka qurux badan inay ahaato dhoola cadeynta wajigaaga adigoo ka waayay qalbigaaga ha noqoto shakhsiyadaada mid qarsoon oo qofna yuusan ku fahmin laakiin qalbigaaga ha noqdo mid saadiq ah oo run sheeg badan oo aan cidba wax yeelin waxaa jira sheeyaal tegaya aanan soo laabanaynin iyo sheeyaal markii ay soo laabtaan kadib aan sidii hore ahaanaynin ula dhaqan dadka midii u wanaagsaneed ee lagu abuuray qofkii muteysta ee kan kaleba adigu waxaad guri ku yeelanaysaa jannada ee qalbi walboo bani aadam leeyahay kama yeelanaysid guri ku kalsoonow in ayaamaha quruxda badan ay kuu dhow yihiin waxbana kaama xigsamayo haddaad u marto waddada loo maro oo ah samirka iyo adkaysiga waxa ay cajabgeliya dhoola caddeynta hooyo waxaase igala sii cajiib badan markaan sabab u ahaado dhoola caddeynteeda laba arrimood ayaa burburiya noloshaada oo kale ah inaad ku mashquusho wixii la soo dhaafay ama inaad ku mashquusho dadka kale haddaba haddaad ku mashquusho wixii la soo dhaafay waxaad dayacday mustaqbalkaada haddaad raacraacdana ama aad ku mashquusho dadka kale waxaad dayacday qayb ka mida raaxadaada micnaha issareexaada dadka waxay ku xaasidayaan saddex xaaladood markii aad tahay kow markii ay dhexli karin waxa aad dhaxashay yacnii markay gaari waayaan horumarka aad gaartay labo markii ay ka cajisaan inay kula mid noqdaan saddex markii ay awoodi kari waayaan inay ku soo gaaraan haddaba adigu noqo sida geedka midhaha leh oo kale oo markii ay dadku tuuriyeeyaan asna u soo daadiya midhaha ma helaysid degganaan xasilooni amni iyo raaxo ilaa salaadaha shantaa wakhtigood aad ka tukatid waayo waxa ay ka mid tahay tiirarka sacaadada albaabka liibaanta iyo najaaxa waddada guusha iyo buundada badbaadada ha sugin cid wadda kuu furta si aad u marto adiga furo waddadii aad mari lahayd haddii aad weysay wadda aad furatid adiga samayso waddo balse haddii aad ku jirtid qolka oo aad tidhaahdid wadda la mara ma laha weligaa sidaasi ayaad ku gabyaysaa marka hore ka soo bax qolka oo dibadda imow oo eeg inay waddada furan tahay iyo in kale waxaa dhici karta inaadan awood u lahayn inaad dadka tusiso jacaylkaaad u qabto laakiin waxaad awood u leedahay inaad tusto ixtiraamkaaad u hayso maxaa ka qurux badan inay ahaato dhoola caddeynta wejigaaga adigoo ka waayay qalbigaaga ha noqoto shakhsiyadaada mid qarsoon oo qofna yuusan ku fahmin laakiin qalbigaaga ha noqdo mid saadiq ah oo run sheeg badan oo aan cidba wax yeelin waxaa jira sheeyaal tegaya aanan soo laabanaynin iyo sheeyaal markii ay soo laabtaan kadib aan sidii hore ahaanaynin ee si fiican uga fiirso go'aanka